garab istaaga dadkeena abaaruhu ay hayaan waa mid inagu waajiba waana qalinkii Yuusuf Maxamed Ismaaciil Somaliland waxa ka jira abaara aad u daran oo saameyn ku yeelatay dalka oo dhan lagana soo bilaabo dhulka oomanaha ah ee xoolo dhaqatadu ay u badan yihiin ilaa iyo degsiimooyinka beeralayda sida laga warqabo roobabkii la dhowrayay ee guga iyo kuwii dayrta ayaa aad u yaraa intii laga filayayna noqon waayay waxaana tani ay keentay in deegaano badan oo dalkeena ay gabaabsi ku yihiin biyihii iyo daaqiiba halka sidoo kalena la soo wariyay in caruurtu ay la irdelan yihiin nafaqa darro waxaana taasi ku lamaan in kaamkii barakacayaasha ay ku jirto xaalad cunto yaraaneed oo baahsan dadka ugu badan ee abaartu ay saamaysay waa xoolo dhaqatada iyo beeralayda ku dhaqan gobolka Awdal Saaxil Togdheer Sool Sanaag iyo Maroodi Jeexe sida ay xoguhu ay muujinayaan cunto yari iyo waliba biyaha oo gabaabsi kuwa ama se ka idlaadayba ayaa deegaano badan sababay in xoolo dhaqato badani ay ka barakacaan arrimaha kale ee ka qayb qaatay masiibooyinka bini'aadaminimada waxaa ka mid ah jaridda dhirta si dhuxul looga dhigo taasi oo keentay xaalufin dhanka daaqsinka ah khatarna ku ah isbeddelka cimilada inta badan dadka abaartu ay ku habsatay ma haystaan waxyaabihii daruuriga ahaa ee ay noloshooda ku maarayn lahaayeen waxa kale oo muhiim ah in isha lagu hayo xanuunada dadka iyo dunyada saameeya ee ka dhasha abaaraha sidaasi oo ay tahay dawladda Somaliland iyadoo ka shidaal qaadanaysa duruufaha taagan waxay bilowday dadaallo isku dubaridan oo lagu gaarsiinayo gargaar degdeg ah dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo mudnaanta la siinayo biyaha cuntada caafimaadka iyo waxbarashada madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa magacaabay guddi qaran oo ah gurmadka abaaraha Somaliland iyaga oo ugu baaqay beesha caalamka qaadaan bixiyayaasha ganacsatada iyo jaaliyadaha reer Somaliland ee dalka iyo dunida qaybahooda kala duwan jooga in gurmad degdeg ah oo abaaraha ah ay galaan shaqada guddiga oo uu gudoomiye uu yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa ah in ay sameeyaan olole wacyigelin iyo inay ururiyaan kaalmooyin degdeg ah iyo sidoo kale inay isku xidhaan lana shaqeeyaan guddiyada abaaraha ee heer gobol si la isugu dubarido kaalmada loo ururinayo iyo deeqda lagu daboolayo baahida sii kordhaysa ee haysata dadka abaaruhu ay saameeyeen guddidan heer qaran ayaa kulamadii ay yeesheen waxay kaga wada xaajoodeen qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kow dhamaystirka qaab dhismeedka guddiga heer qaran ee gurmadka abaaraha laba samaynta guddiyada gurmadka abaaraha ee heer gobol iyo heer degmo gobolada dalka oo idil saddex la socodka xogaha maalinlaha ah ee xaaladaha abaaraha dalka oo dhan afar samaynta guddi hoosaadyo farsamo oo markaasi la shaqeeya guddida abaaraha ee heer qaran shan dejinta hanaanka loo ururinayo loona maamulayo lacagaha qaadhaanka iyo deeqaha oo ay ugu mudan yihiin ganacsatada qurba jooga iyo dadweynaha reer Somaliland lix joogteynta kulamada maalinlaha ah ee ay guddidu kaga arrinsanayaan socodsiinta howlaha baaxadda leh ee gurmadka abaaraha Somaliland haddaba waxay xukuumadda Somaliland waajib ku ah inay diyaariso qorshayaal qaran oo ay sanadaha soo socda ku maarayso kagana gaashaamato abaaraha soo noqnoqda dalkeena sidoo kalena waxaa daruuri ah in gurmadyo degdeg ah oo markaasi dhiig joojina la gaarsiiyo meelaha ay dadka nuguli ay ku nool yihiin isku soo wada duubo isku arxamida iyo iskaashiga dhexdeena ahi waxa uu caynaaninaya nolosha mujtamaceena ay abaartu haysato